xuska maalinta deegaanka adduunka oo 5 Juun sanad kasta laga xuso guud ahaanba caalamka ayaa maanta munaasabad ballaaran lagu xusayo maalintani si weyn loogu qabtay magaalada Burco waxaana munaasabadani ay soo qaban qaabiyeen mas'uuliyiinta wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee gobolka Togdheer ay ka qabsoontay xarunta wasaaraddaasi taasoo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ka socotay wasaaradda deegaanka qaar ka tirsan laamaha dawladda ee gobolka Togdheer iyo waliba shaqaalaha wasaaradda deegaanka waxaana munaasabadani ahayd mid si weyn loogu xusayay maalintani isla markaana lagu soo bandhigay xaalufinta baan ee xilligan deegaanka lagu hayo halkaasi ugu horeyn baa ka hadlay Khalid Saahid Dirir oo kamid ah khabiirada wasaaradda deegaanka ee gobolka Togdheer waxaanu ku dheeraaday xaalufinta baan ee xilligan deegaanka lagu hayo isagoo xusayn marba marka ka dambaysa nabad guurka iyo waliba dabargoynta deegaanka lagu hayaa ay tahay mid isa soo taraysa inagu bayadiida baabiino oo waxa ugu badan aynu ku baabiinaa ay noqoto dhirgoyntaasoo sida runtii aan ahayn mid inagu inta badan waxaan nahnaaday dhuxul baa loo isticmaalaa dhuxushii ganacsiga ayana sii gashay ganacsiga markay sii gashayna waxa ay ganacsi galaan aafada gelaysa taa way ka sii badnaanaysa ama dhibta jiraysa inkastoo qurux badan tahay in la helo wax lagu bedelo maamulaha wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee degmada Burco Cabdilaahi Xuseen Jaamac oo isaguna halkaasi khudbad dheer ka soo jeediyay ayaa ku dheeraaday muhiimadda uu deegaanku leeyahay iyo waliba xilligan sida uu deegaanku u sii dabar go'ayo isla markaana lagu hayo xaalufin baan waxaanu baaq culus u diray wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga iyo waliba saddexda gobol qaran ee Soomaaliland anagu sarfiye badan research badan aanu sameynay waxay muujinayaan 4 sano 5 sano ee soo socda hadii aan wax la isbedel la sameeynin oo deegaankan baabiinta lagu hayo aan wax laga qaban in ay arintu soo ururi doonto marka waxay neefka xoolaha maalinta wuxuu gooyo waayo ama wuxuu taaqo waayo waxaynu casaysanay waxaynu cabnay waxaynu cadaysanay mid helimeeniyo wax soo isbag laga dhigto toona marka anigu baaqan jeedinayo waxa weeyaan bulshooyinka Soomaaliland u jeedinayo golayaasha xukuumadda u jeedinayo ilaa madaxweynaha runtii aan baaq ugu dirayo waxa weeyaan aafo qaran baa socota oo aad u halisa oo runtii ay xaaladeedu aad u liidato waxaan leeyahay fadhiga laga kaco waxay gaari doontaa mar aan waxba laga qaban karin imka waxba la qaban karaa waxba la daba qabatayn karaa dadku waxay isweydiinayaan abaarahan maxaa soo celcelinaya faraha badan leh biilaantan iyo biidhaamiskan faraha badan leh maxaa keenaya waa taymka uu Saahid ka sheekeynay Khalid Saahid ka sheekeynay uu lahaa roob baa halka ka soo muuqdo uu naga lolo meel ku dhacayba lama hayo dirtii qaban lahayd soo jiidi lahayd dhulka u soo dejin lahayd roobka iyo daruurta meeshii kuma taala way ka baxdo waxaa sidoo kale iyaduna kulankani ka hadashay Marwe Caashe Cali Qabiilo oo ka tirsan mas'uuliyiinta wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee gobolka Togdheer taasi oo ku dheeraatay badbaadinta deegaanka iyo in xal loo helo xaalufinta lagu hayo iyadoo sidoo kalena uu munaasabadaasi ka hadlay isuduwaha wasaaradda qorsheynta qaranka ee gobolka Togdheer iyo waliba marti sharaf kale oo badan markii ay soo gabagabowday munaasabadani ballaaran ee lagu xusayay maalinta deegaanka adduunka ayaa wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee gobolka Togdheer ay maanta qaybisay in ka badan 1500 oo geed oo loogu talagalay in lagu beero deegaamo kala duwan halka uu maantana maamulaha wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee gobolka Togdheer Cabdilaahi Xuseen Jaamac uu si rasmi ah u beeray geedkii ugu horeeyay ee barnaamij ay ugu talagaleen in dhir fara badan lagaga beero gobolka Togdheer